markay ku dhiiranayaan ka cabso markay ka cabsanayaan ku dhiiro marinka hormus dib loo furo rajada maaragtay ayadana waa 17% ayaa leeyahay soo dhawaada saaxiibayaal ku soo dhawaada falanqayntii u dambeysay ee suuqa cryptocurrency saaxiibayaal sida la socotaan ilaa xalay suuqa ku jiray daadasho maxaa sababay daadashadaas halkay wax ka qaban laayihiin problemka ka jira see wax u jiraan muuqaalkan ayaan kula faguri doonaa saaxiibayaal haddii aan ku hormarno dhinaca qiimayaasha BTC da waxaan u jeednaa inay marayso 63,000 Ethereum 1700 iyo 60 BNB $602 XRP $1 iyo 17 cent Solana 68.94 okay waxaan jeednaa coinanku inay wada dhacsan yihiin last 7 days ka BTC waxay dhacsan tahay 13% Ethereum 12 dhinaca BNB waa 5 XRP waxa waaye 11.7 Solana 15% haddaba saaxiibayaal maxaa sababay daadashadan aad ku xooga badan ee suuqa maaragtay aad ku saameysay haddii aan fiirino dhinaca iyo fear and greed-ka waxaan u jeednaa fear and greed-ka inuu marayo 12 aan update ku sameyno inkastoo waxaa dhiman 5 hour ka dhiman marka 12 buu marayaa runtii waxaa lagu jiraa extreme fear ayaa lagu jiraa sidoo kale waxaan u jeednaa shalay inuu ku xirmay 11 last week inuu ku xirmay 22 last month inuu ku xirmay 50 haddii aan fiirno dhinaca assets by market cap waxaan u jeednaa BTC inay tagtay kaalinta 14aad BTC kaalinta 7aad ee ku jirta Amazon ilaa iyo kaalinta 8aad ee Broadcom ay carrisi jirtay runtii lacag fara badan ayaa ka baxday sell fara badan ayaa ku dhacay waa isla fiiri doonaa marka waxaan u jeednaa BTC market capkeedu inuu marayo 1.2 trilyan ayaan u jeednaa waana midda sababtay in lagala baxo kaalinta 7aad oo ay ka hormaraan shirkadaha Samsung, Meta, Tesla iyo Saudi Aramco haddaan fiirno dhinaca iyo technicalka qaybtan waa dollarka waxaan u jeednaa in xoogaa uu yara sii xoogeysanayay saacadii u dambeeyay suuqan uu dhacayay mar walba suuq uu dhacayo dollarka xoogeysanaya taasoo in ogaataa haddaan fiirino BTC ayadana waxaan u jeednaa falanqeynihii hore usoo sameynaynay in targetkii hore nalagu dhacay oo weliba la dhaafay annaga 68,000 ilaa iyo 65,000 ayay ahayd targetkeenu labadiiba waa la dhaafay marka waxaan u jeednaa BTC da in ay waxaasoo dhan ay maaragtay hore usii dartay oo hadda ay marayso 63,000 lagana soo celiyay 61,500 ayaan u jeednaa haddaba haddii aan fiirino xaaladda hadda lagu sugan yahay candleka waa daily waxaa go'aami doontaa horta candlekan dailyga ah sidoo ku xirmi doonaa haddii candlekan uu ku xirmo inta badan markay suuqa sidan u daato candlelada suuqa ku xirmo waa hammer ama bean hammer oo kale haddii uu bean hammer u noqdo candlekaas xogaa raja ayaa jirta dib loogu laaban karo sidoo kale waxaa jirta qaybta marka waxay noqon kartaa haddii uu candleka u noqdo bean hammer ku xirmo inkastoo go'aan laga gaari karin candleka oo aagan suuqa maaragtay laga yara celiyo in suuqa uu maaragtay u laabto meeshaan ay noqoto bear trap inay noqoto kadib dhaaq noo sameeyo dhaqaaqaas marka waxay ku xirnaa doontaa zoneskan meesha maaragtay lagu sii go'aamin doono waxaa waaye dhaqaaqan wuxuu noqon doonaa mid yacni soonkan dhaafa miyuu noqon doonaa mise mar kale ayuu ku meereysan doonaa haddii ay dhacdo in uu zoonkan mar kale ku meereysto waxaan arki karnaa in uu maaragtay suuqu mar kale daasho isku diyaari karo oo qaab nuucan ah ay mar kale dhici karto haddii zoonankan la jabsado ayadana waxaa waaye waa problem kale oo taagan wayna ogaataa marka meelaha lagu dagaalami doono hadhow meelahan ayay noqon doonaan sidoo kale waxaa muhiim ah mar walba in lala socdo xaaladaha fundamentalka ayaa suuqa aad iyo aad u saameeya dhinaca kale ninka odaga ahaa Michael Saylor shirkadiisa MicroStrategy waxay aad u gadeysay isbuucaanba Bitcoin-ka tan iyo 2020 Bitcoin-ka guud ay haystaan waa 843,000 marka qiimo dhan 53 bilyan ee uga fadhida odagu marka waxaa waaye runtii khasaare fara badan buu dhex jiifaa ilaa iyo 11 bilyan oo dollar
ayuu maaragtay dhex fadhiyaa. Sidoo kale waxaan u jeednaa in uu seel fara badan oo beryahan waday ayaan u jeednaa. marka saaxiibayaal saameynta ay leedahay dadka whaleska ah inay bitcoin-ka saalgarayaan waa midaan. waxyaabaha kale oo runtii aadka iyo aadka maaragtay suuqa dhulka ula galo waxaa ka mid ah dhinaca liquidationka oo dadkii suuqa bayga u galay in laga saaray suuqa ama positionadooda la xiray. haddii aan fiirno marka 24 saac u dambeysay waxaan u jeednaa in 1.78 billion liquidation lagu sameeyey. dhinaca exchange-yada haddaan fiirino waxaan u jeednaa Binance ayaa u badan oo waxaa liquidation lagu sameeyey 739 milyan oo maaragtay loo tuuray dhinaca maaragtay long. sidoo kale waxaan u jeednaa dhinaca shortigan loo tuuray 100 iyo maaragtay 10 milyan. sidoo kale hyperliquid ayaa ku xiga oo 300 iyo 13 milyan ayaa si guud maaragtay exchange-gaas liquidation lagu sameeyey. longiga waxaa waaye 249, shortigana waa 63 milyan. Bybit ayaa ku xiga oo 262 milyan ah si guud. dhinaca longigan waxaa waaye 235 milyan, dhinaca shortigana 26 milyan. marka saaxiibayaal waxyaabahan marka dadka qamaarka dheela dhinaca futureska waaye, dhinaca maaragtay dadka suuqa aad ku qariba. marka dadkii qamaaraystayaasha ahaa waa la tuuray. marka waxaan rajaynaynaa in meeshaan dhaaqeer ka yimaado. haddaan dhinaca DXY waa fiirinay, dhinaca market cap haddaan fiirino maaragtay si guud suuqa waxaan u jeednaa inuu marayo 2.18 trillion oo waxaan u jeednaa in lacaga fara badan ay suuqa ka baxeen oo markii u dambeeyay suuqu 2.72 trillion in laga soo celiyay ayaan u jeednaa. marka saaxiibayaal zoonkan aan hore usii calaamadeynay hadda waxaa u maleysaa in la taabto uu ku dhow yahay. marka in zoonkan uu kala wareego ayaan rajaynaynaa. mar walba suuqa lacag soo gasho waa mar walba bitcoin-ka iyo altcoins-ka ay laabtaan. haddaan fiirino dhinaca iyo total 2ga isagana waxaan u jeednaa in zoonkii xooganaa la jabsaday oo loo socdo zoonka labaad. okay, USDT dominancy haddaan fiirino asagana waxaan u jeednaa habeen dhowte in oo meeshaan ku jiro dhinaca maaragtay diagonal trendline-ki in la jabshay oo isagana uu dhaaqaysa sii wato. taxliilintii hore ayaan ku sheegay weliba muuqaalkii u dambeeyay soo daawo. marka zoonka iyadana laga celin karo oo isleeyahay nasiina ku samayn kartaa waa zoonkan oo all time high-geeda ahaa 9%. iyadana waa muhim marka aaga la gaaro ayay soo kala wareegi doontaa. mar walba lacagtu ka baxa waa midda suuqa aadaysa. Ethereum haddaan fiirino xaaladeeda iyadana waxaan u jeednaa zoonkii xooganaa in la jabsaday oo zoonka labaad la ixtiraami doono ayaan u jeednaa. runtii coinkan waxaa waaye isha ayaa lagu wada hayaa oo dadkii maaragtay dhinaca iyo bitcoin-ka soo saalgaraya ayaa aad u iibsanaya. taas waa inaa ogaataa oo isagana waxaa waaye fundamentalkiisa aad buu xoogan yahay. haddaan fiirino Solana waxaa u jeednaa muuqaalkii fursadaha coinskana oo maaragtay ku taxliilinay kii kaloo taxliilinta ku taxliilinay sidee bay u socotaa. falaagan sidiisa u socdaa waa shaqeynayaa. marka runtii haddii maaragtay ii sheeg targetka sida saxda u dhaco ilaa iyo 19 ayay tegi doontaa. saaxiibo badan baa luuqaya la soo hadlay waxay leeyihiin warniin Solana galnay markii aan baasha galnay ayaa maaragtay la ku saalgaranayaa. saaxiibayaal waxaan leeyahay maaragtay coinka DCA lagu sameeyo. coinkan coin fiican waaye, coin maaragtay ciyaalka xaafadda ma ahan, waa coin project fiican leh. yaa laga baqay dhinaca Afrika daan fiirino waxaan u jeednaa iyadana in ay maaragtay structure-ka Solana oo kale ay leedahay render oo beryahan dhaqaaqaysi. iyadana waxaa u jeednaa inaysan aad u daadan xoogaa iscelinayso weli oo ay correction iskaga jirta virtual oo isagana beryahan aad iyo aad maaragtay u dhaaq sameynayay. isagana zone macquul ayuu joogaa haddii aan la jabsan inkastoo maaragtay la taabtay zoonka hore. marka saaxiibayaal haddii aan fiirino dhinaca iyo maaragtay bull market-ka problemka ugu weyn horta waxaa waaye xiisada bariga dhexe gaar ahaan Iran iyo Mareykanka. marka bull market-ka waxay sameeyaan codeyn bay sameeyaan si guud. marka in heshiis la gaaro December 31 ilaa iyo October 31 ayaa loo kala codeeyay. marka dadku waxay u badinayaanba December 31 ayaa maaragtay 73% ay leeyihiin. qaybta kale nooxda waxaa waaye in maaragtay
marinka hormus dib loo furo rajada maaragtay ayadana waa boqolkiiba 17 ayaa leeyahay marka bishan June dhamaadkeeda caadiyan marka saadaalahan waa meelaha aadka dadku ay u go'aan qaataan waaye marka caadiyan waxaa la rabaa in maaragtay isha aan ku hayno waxyaabaha maaragtay ka dhacaya bariga dhexe waa meel xaaladeedu aad u qasan tahay wax walba oo maaragtay okay ahaa ay habeenku kala jeefto laisku mirsanayaa marka waa inaad midaas ogaataan dhinaca fundamental newska haddaan fiirino saaxiibayaal waxaan u jeednaa maantay newska maan taagnaa hal news ayaa maan taagnaa oo ah initial jobless claimska uu soo baxay oo runtii waxa waaye suuqa ayuu maaragtay u xumaa haddaan fiirino berri waxaa taagan 3 news average hourly earnings iyo non-farm payrolls May iyo unemployment rate oo bishii May ah isagana waa arki doonaa sida ay ku soo baxaan marka saaxiibayaal si guud suuqa laga faa'iideysto dhicitaanka waa Janis ee maahan cabsi saaxiibayaal soo xasuusta qoraahdii uu dhihi jiray Warren Buffett markay ku dhiiranayaan ka cabso markay ka cabsanayaan ku dhiiro aadama santeen saaxiibayaal muuqaalka la gareeya YouTube ka subscribe saaro gambeelka furo saaxiibadan la wadaag